kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada warbixin ku saabsan naqshadeeyaha marada madow ee kacbada ku dadan. mukhtaar aalim shakdar waa naqshadeeyaha ama farshaxmiistaha rasmiga ah ee kiswa oo ah marada madow ee lagu dado kacbada barakaysan. shakdar wuxuu shaqadan kala wareegay cabduraxiim bukhaari oo sanadkii 1996 ku dhintay isagoo jira da'da 90 jirka. shakdar wuxuu ku biiray dugsiga lagu barto farshaxanka masjidka weyn sanadkii 1978 halkaas uu 2 sano ku qaatay ku takhasuskeeda. wakhtigaasi wuxuu ku jiray heerka hoose ee waxbarashada asaasiga. kadib markii uu dhammeeyey markhaatigiisa PA ee kuliyadda waxbarashada, shakdar wuxuu ku shaqeeyey sida macallin dhiga cilmiga farshaxanka muddo 20 sannadood ah, dhowr meelood oo ay ka mid tahay jaamacadda Umma al-Qura. shakdar wuxuu markhaatiga labaad ee master degree ka haystaa culuumta farshaxanka wuxuuna ka dhigaa qur-aanka masjidka weyn. mid ka mid ah macallimiintayda ayaa igu dhiirigeliyey inaan ku biiro warshadda kiswa, waxaana ka mid noqday sanadkii 2003. waxaan soo kordhiyey fikradda ah in farshaxanka kiswa marada kacbada loo adeegsado qaab kombiyuutaraysad ah. dhammaan maryaha ka soo muuqanaya kacbada waxaa iskale bukhaari, aniga waan naashnaashay oo keliya, ayuu yidhi ninka kan. dadka qaar waxay u maleeyaan in aayadaha qur-aanka ee ku qoran marada kiswa ay yihiin kuwo cusub sanad walba, hase yeeshee warshadda waxaa u diyaarsan kuwii ay isticmaali lahayd mustaqbalka. waxaa jira weji kala duwan oo qoraaladani soo maraan. ugu horreyn waxaa lagu qoraa gacanta, kadibna waxaa lagu farsameeyaa hab kombiyuutar ahaan ah. teknolojiyaddu waxay aad warshadda uga caawisay inay u keydiso xogo muhiim ah oo kol hore lumi lahaa, ayuu yidhi. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. waad ku mahadsantihiin daawashada warbixinteennan ku saabsan la kulanka naqshadeeyaha marada madow ee kacbada ku dadan. fadlan la wadaag saaxiibada kale si ay u gaarto warbixintan.